halkani waa London laantii af Soomaaliga ee BBC-da oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19 iyo 49 mitir band iyo FM-yada Afrikada Bari iyo internetka oo dunida oo dhan aad nagala xidhiidhaan. habeen wanaagsan akhyaartana dhageysatay saacadda Afrikada Bari marka waa 9kii fiidnimo. arrimaha aanu ku soo qaadayno barnaamijkana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Yemen oo sheegay in uu ku daraynayo amba ididiilo weyn uu ka qabo in laga wada hadlo dalka Yemen sida xilliga madaxweynuhu uu xilka ku wareejinayo Cali Cabdallah Saalax. qaramada midoobay oo dawladda jasiiradda Seychelles ku ammaanay doorka ay ka ciyaarto la dagaalanka burcadbadeedda Soomaalida ee maraakiibta ka afduuba badweynta Hindiya. xoogaga la dagaalamaya ciidamada Colonel Gaddafi oo dib u qabsaday magaalada Ashdaabiya iyo waraysi aanu la yeelanay Cabdilaahi Kongo oo ka hadlaya shir weyn oo dhowaan loo fadhiistay magaalada Dubai oo ay ka qayb galeen dalalka ka tirsan ururka dhaqaalaha ee Comesa iyo Imaaraadku. waa caawa iyo caalamka. marka horese waa warkii dunida waxaa inoo haya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad. Cabdirasaaq. mahadsanid Cabdilaahi. dhinaca bariga dalka Liibiya ciidamada dawladda ka soo horjeeda ayaa la sheegay dib inay u qabsadeen magaalada muhiimka ee Ajdabiya oo ay ka qabsadeen ciidamada daacadda oo ah hogaamiyaha dalka Muammar al-Gaddafi. waa magaaladii ugu horreysay ee kooxaha dawladda ka soo horjeeda dib ay u qabsadeen tan iyo markii la bilaabay halganka dayuuraduhu ay kaga caagan yihiin hawada Liibiya. wasiir ka tirsan Liibiya Khalid Kaim ayaa waxa uu sheegay ciidamadiisa dhinaca dawladda in cirka ay ka duqeeyeen ciidamada caalamiga ah oo ku eedeeyey toos inay u taageerayaan fallaagada. kooxaha dawladda ka soo horjeeda ayaa waxa ay sheegeen dib inay u riixayaan ciidamada Gaddafi dhinaca galbeedka oo ay ku dhow yihiin dib inay u qabsadaan magaalada Brega. dad banaanbax sameynayay dalka Suuriya ayaa waxa ay codsanayeen xorriyad dheeraad ah waxaana la sheegay inay ka qayb qaateen aas la isugu yimi dad lagu soo warramayay in lagu dilay banaanbax dhacay maalintii shalay oo la sheegay inuu ka dhacay magaalada Dirca. kooxuhu waxa ay sheegeen inay doonayaan xaqooda inay helaan dad ahaan. ururka u halgama xuquuqda bini'aadmiga ee Amnesty International ayaa waxa ay sheegeen ugu yaraan 55 qof inay ku dhinteen dalka Suuriya tan iyo intii banaanbaxyadu ay bilaabeen muddo imika laga joogo 7 toddobaad. aaska ka hor maamulku waxa ay sheegeen inay sii daayeen dad dhowra oo la sheegay inay u xidhnaayeen dhinaca siyaasadda. madaxweynaha dalka Yemen Cali Cabdallah Saalax ayaa mar labaad waxa uu diiday baaqa ka imanaya mucaaridka ee ah inuu jagada ka dego. waxa uu sheegay dawladdiisu inay meel adag istaagi doonto si ay uga hortimaado cadaadiska uu sheegay inay wadaan dad tiro yari. hore wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Yemen Abubakar al-Ghirbi ayaa waxa uu sheegay dawladdu wada hadallo inay kula jirto kooxaha mucaaridka suurtagal inay tahay awoodda in la wareejiyo. madaxweyne Cali Cabdallah Saalax dalka waxa uu xukumayay in ka badan 30 sannadood waxaana uu sheegay isagu inaanu jagada ka degaynin ee uu doonayo in uu keeno isbeddello dhinaca siyaasadda ah. mucaaridkaasi yeeshee waxa ay doonayaan hadda in uu ka dego jagada. 100,000 oo qof ayaa ka qayb qaatay banaanbax ka dhacay bartamaha magaalada London oo dadku ay ku diidan yihiin dawladda oo goynaysa waxyaabaha ay ku bixiso adeega dadka. waxaana taas oo ay ka timid dawladda isbahaysiga ee dalkan Britain. waa banaanbixii ugu weynaa ee ka dhaca dalkan Britain muddo 8 sannadoodna tan iyo waqtigii la sameeyay banaanbaxa weyn intaan lagu duulin dalka Ciraaq. badi dadka banaanbaxa sameynayay waxaa la sheegay si nabadgelyo ah inay u banaanbaxayeen hase yeeshee koox yar ayaa la sheegay inay ka go'een dadkii banaanbaxa sameynayay oo ay dhagxiyeen baanan iyo dukaano dhinaca dhulka dukaanadu ay u badan yihiin. dadkaas oo la sheegay booliiska inay gacanta isula tageen. ciidamada reer galbeedka ee jooga Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen si kama ah inay u dileen 7 qof oo rayid ah markii dhinaca cirka ay ka duqeeyeen.
saraakiisha waddanka afghanistan ayaa waxa ay sheegeen 2 haweene iyo 3 carruuri inay ku jireen dadka dhintay. wararku waxa ay sheegayeen 5 qof oo kale oo rayid halkaa inay ku dhaawacmeen. waxa ay dhacday markii dayuuradaha helikobtarka ee gaashaandhigga nato ay duqeeyeen 2 gaadhi oo marayay gobolka helmand iyada oo markaa ay aaminsanaayeen inuu siday hogaamiye talibaan iyo kooxo isaga la shaqaynayay. dalka jarmalka waxaa la sheegay bannaanbax ballaaran inuu ka dhacay oo lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu weynaa ee laga bannaanbaxo arrimo liddi ku ah quwadda nukliyeerka. ilaa 200 oo kun oo qof baa la sheegay inay soo baxeen 4 magaalo oo dalka ku yaala. quwadda dhinaca nukliyeerka waxa ay noqotay arrin weyn oo dhinaca siyaasadda ah waddanka jarmalka tan iyo markii xiisadaha dhinaca nukliyeerkii ay ka bilaabmeen dalka jaban. waxaana la sheegay qayb weyntaas in ay ka noqon doonto doorasho gobol oo dhici doonta maalinta berito oo axada. dadka arrimaha ka faallooda ayaa waxa ay sheegayaan xisbiga angela merkel oo iyadu dalka xukunta oo loo arko inay yihiin kuwa u janjeera dhinaca shidaalka nukliyeerka in laga yaabo inay waayi doonaan gobolka baden württemberg oo la sheegay inay noqon doonto markii ugu horreysay ee lagaga adkaado muddo 60 sannadooda. intaasna waxaa ku dhan warkii dunida halkaasaad ka dhegaysanayseena waa laantaab soomaaliga ee b b c da cabdirasaaq xaaji maxamed siraad ayaa warkana la socodsiinayey. imikana waa qaybihii kale ee barnaamijkee aan ku bilaabe wasiirka arrimaha dibadda ee dalka yeman abukar al qirbi oo hadlay waxa uu sheegay in uu quudaraynayo in laga wada hadlo xilliga uu madaxweyne